كل مدحوينها ذلك يوغندا مسافني هذا الكسو يري ما حتى هذا بدهم يدق ما بتولبه كل وحود رقمي سيدي وحوش نمدا iyo anshaxa ka baxsan dawladnimada iyo cilaaqaadka dawladnimo waxaan oran karaa ma aha qof xataa lagu aamini karo iska dhaaf hirtuuleen lagu aaminaa iyo qalada kulay waxay la tahay hadal ka soo yeedho inaanu ahayn normal ma malayn karaa maskaxdiisu waayo malaha wuxuu u malaynayaa dawladnimada 40 sano iyo 30 sanadood oo kursi lagu fadhiyo wadankiisa uu dadkiisa fuqaraa oo dad silicsan oo rafaadsan ah markaas uu leeyahay dawladda Soomaaliya maamul iyo waxba kama jiraan marka kulay anigu aad baan uga xumahay dawladda Soomaaliya waxa kala gudboon inay dawladda Soomaaliya kulay cilaaqaad way la leedahay oo ciidankeedii dawladda Uganda waa halkan jooga waana kuwa ugu fulaysan maanta haday argagixisadu hal yar oo gantaal ku soo dhufato amba hoobiyo ku soo rido waxay ku jawaabaan 500 oo gantaal oo shacabkii baabiyaanba anaga ciidanka Uganda iyo kuwa dhamaan Amazon waxa meesha joogaba waxa looga qiimo badan oo ka sharaf badan oo ka geesisan ciidamada qaranka alfa guruuhaada amba unkada haadan dawladda Soomaaliya kuwan iyo kuwa lamid ah iyo dawladaha lamidkaaba inay cilaaqaadkan u jirno waayo maanta unkadka iyo maxay guuxa ka socda mandaqada geeska Afrika wax kala ma aha waxa weeyaan waa bilowgii iyo hirdankii qarannimada Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya 2027ka insha Allah intii la gaadha waxaad arki doontaa tan oo halkan la isugu iman doono haddii Allah wadaleedna innaga ayaa is hoos dhignay dawlado aad inooga liita ilaa iyo hadan iyagoo xataa dawladda nidaamkooda shaqeynaya waynaga liitaan Uganda kamida wax ilmahooda maanta lagu koriyo magaca Soomaaliyeed joogitaan halkana oo wax ay qabanayaan oo tangible ama la taaban karo sa u weyn aanu jirin yaad Uganda ka jirta marka inuu saa u hadlo waa waxaynu inagu dhexdeena isyeelay mar alla iyo marka la yiraahdo cunaqabateen hubka ah laga qaado dalkaas tusaale ahaanba Uganda waa dalka koowaad ee aad u shukaaminaysa ama ugu loobi gareynaysa waxay afka qalaad ku yiraahdaan dalalka United Nations oo dhiibaysa warbixinta qaladka ah in dalkani aanu nabad ahayn in dalkani uu baabayahay in dalkani uu mataqaanaa aad u hooseeyo marka hadalka madaxweynaha ku qabtaamay inuu yiraahdo Soomaaliya taliska ma jiro aad buu ugu khaldanaa haddana waa ku khaldan yahay wana ku khaldanaan doonaa taariikhduna way qori doontaa laakiin hal mid ayaan idin ogeysiinaya warniyow ninkaasi waa baadari kaniisadeed inaad taqaaniin ma aqaani kaniisaduhu u shaqeeyaa waanaad ogtihiin kaniisaduna ma rabaan dalkan inuu hagaago ama wax ka hagaagaan ama horu kac uu gaaro ama dalkan oo israacay oo sidoo ahaan jiray lugihiisa mar labaad dib isugu taagan la arko ma rabaan saas aan ugu qabaa Soomaaliya inta iska jiro waxa ka marqaati ah maxay aheeday Uganda ciidankeeda hadaan dawladnimo jirin yow imaada marka warkaas waa waxaan wax ka jirin waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya Uganda iyada dalabta markii ay dalabta inuu yiraaho macnaha taliska ma jiro wax qalad ah oo dawladda xageeda waa aan rabaa inay warkaas ka fal celiso oo tiraa hadaan dawlad jirin ama talis jirin yaa see adiga lagu dalbo wadamada kale marka dhahayso diblomaasiyad xageedan uga aamusahay anaka diblomaasiyad maxaa noo diiday warkaas war qalad waay wax nin madaxweyne oo ku hadlana ma balahanba askariga Soomaaliga $100 la siiyaa askariga Ugandeeskana 1500 oo qaata marka qaladka yaa inay Soomaaliya dhahan dawladnimo kama jirto yaa annaka isyeelnay marka waxaan rabi lahay inay dawladda Soomaaliya ay ka fal celiso hadalkaasoo hadal u dhikama ay tiraa